Waxaa magaalada Washington ee dalka Mareykanka isugu yimi golaha Muslimiinta Mareykanka oo ka arrinsanaya qadiyadaha quseeya Muslimiinta. Golahan oo ka kooban ilaa iyo 50 daladood oo ay ku midoobeen Muslimiinta Mareykanka ayaa kulamo la leh labada aqal ee Koongareeska Mareykanka iyo Golaha Wakiilada. Culimada halkaas isugu yimi oo ay ku jiraan kuwo badan oo Soomaali ah ayaa Koongareeska kala hadlaya tabashooyinka ay qabaan dadka Muslimiinta ah ee Mareykanka ku nool oo ay ugu weyn tahay caburin ay sheegeen in ay kala kulmeen taageerada ay u muujiyeen Falastiiniyiinta oo ay ku socoto duqeynta Israa'iil. Culimada ayaa dalbaday in dhaqso loo sii daayo dad la xiriiray iyaga oo dareenkooda cabiraya si ay taageero ugu muujiyaan Falastiiniyiinta. Dhinaca kale, Muslimiinta ayaa sheegay in ay kala hadlayaan labada aqal ee sharci dejinta Mareykanka qadiyadaha quseeya Muslimiinta gudaha iyo dibadda. Sheekh Yuusuf oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in ay kala hadlayaan Koongareeska iyo Golaha Wakiilada in la dhowro xuquuqda Muslimiinta gaar ahaan midda ay u leeyihiin in ay isu soo bax dhigaan. Waxa uu si gaar ah farta ugu fiiqay dibadbaxyada looga soo horjeedo dhibaatada ka socota Gaza ee ka socda qaar ka mid ah jaamacadaha dalka Mareykanka. Muslimiinta Mareykanka ayaa dhanka kale sheegay in ay jiraan Muslimiin badan oo loo xirxiray dibadbaxyada jaamacadaha Mareykanka ka socda. Dadka arrinta loo xirxiray waxaa ka mid ah Xildhibaan Ilhaan Cumar iyo Muslimiin kale oo badan.